waxaan rabaa halkan inaan si kooban aan u maro taariikhda laba-iloobaanka ah ee geeska Afrika soo maray kumanaan sano ka hor ilaa iyo maanta. Dhulkan banaadiriga ah siduu ku yimid, dadkii deganaa, dadkii soo helay, taariikhdii lasoo helay, suldaanada iska bebedeleen, dhaqankoodii, ganacsigoodii, muxuu ahaay ayaan rabaa inaan isagoo kooban insha allahu tacaala idin soo gudbiyo, anigoo ah Sharif Aarone ama Sharif Axmed Aarone. runtii waxaan u dhahaa aniga sidaydaba ummad aan taariikhda hore iyo hiddahoodii iyo dhaqankoodii hore aysan ogeyn waa geed aan jirad lahayn. Geed hadduu jirad lahayn waxtar ma leh. runtii dadka reer banaadir waxay yihiin dad asal la taaban kara leh. asalkaas la taaban karana maanta bugaagta taariikhda ee caalamka oo dhan ayaa ku qoran, laakiin dadka reer banaadir iyo dad badan oo Soomaali ah ma ogo. marka waxaan jeclahay haddii alla yidhaah inaan kasoo bilaabo 4,000 sano ama 5,000 sano. muxuu ahaay muqdisho maxaa loo yaqiinay? banaadir iyo muqdisho ka hor maxaa la dhihi jiray? ama xamar ka hor 4,000 sano waxaa jiri jiray boqortooyin oo Gariig iyo Yuhuud ah. kuwa Gariiga ah ee yimid geeska Afrika, siiba muxuu ahaay muqdisho, marka baraabe iyo kismaayo, waxay u bixiyeen Sarabion. Sarabion oo macnihiisa ah magaalo dekedeed oo ku yaala geeska Afrika. magaca ayaa ka horeeyey magacyada maanta aan u yeero dhan oo ah banaadir, oo mar dambe yimid beershiyaanka iyo carabta markay magaalada ay arkeen ganacsigeedii oo buumin ah. waa gaari doonaa insha allahu tacaala qaybtaas. waxaan rabaa hadda inaan si dhaqso ah aan u duul maro. muxuu ahaay laga soo bilaabo 4,000 sano kadib, Sarabion kadib, waxaa jiray jasiiratul carab. waxaa ku noolaa xilligaas boqortooyin oo yuhuud ah oo aad iyo aad u awood badan, oo jasiiratul carab oo dhan haystay, oo la dhihi jiray ximyar ama boqortooyadii ximyar ama kaamil tubac ayaa la dhihi jiray, ama the great ximyar. dowladda ugu awood badan oo caalamka ayuu ka mid ahaa. waxayna ahaayeen yuhuud. sanadkan wuxuu ahaa ay bilowdeen 110 BCE ayay dhahaan, before common era, before the Christ. waqtigii nabi muuse waqtiyadaas ayay ahayd ama ka hor. waxaa dhacday dadka yuhuudiga ah boqortooyadaas oo tubac la dhihi jiray ama kaamilu tubac ama himyar, waxay jireen 11 farac. 11kaas farac waxay iskula jireen yahuud, kirishtaan iyo faracii u dambeeyey oo lagu tilmaamay inay muslim ahaayeen. laakiin dad ahaan waxay ahaayeen dad gaalo ah, laakiin boqortooyadoodii ugu dambeysay ayaa la sheegaa inay ahaayeen muslim, siduu nabiga calayhi salaatu salaam uu sheegay. muxuu ahaay marka waxaa dhacday dagaalo ayaa wadamadaas ka jiray mar walba. marka waxaa loo socday dhul balaarsi iyo wadan qabasho. boqorka 3 wiil uu dhalay ayaa labana Ethiopia timid oo xukunkii ku dagaalameen, midba midka kaluu dilay. midna Shingani ayuu yimid, xaafadda Shingani. ninka xaafadda Shingani yimid muxuu ahaay waxaa la dhihi jiray Shangaan ibnu Haad ibnu Rabika Maad Karib Yaafir. sanadkan waxay ahayd 525 ilaa iyo 560 ayuu joogay. 35 sannadood ayuu meesha boqorka ahaa ama uu xukumayay. markaas Shingani keliya ayaa magaalada muqdisho ahayd. mar dambe ayaa balaaran doontaa magaalada oo xamarweyne ku darsoomi doonaa ilaa iyo dhowr qarniyo badan.
xamarweyne iyo shingaane iyo muqdisho noqon doonaan. xaqiiqdii qarnigaas kadib oo boqorkaas shingaan ibnu haad markuu noolaa kadib wuxuu dhintay 560 10 sano dhalashadii nebiga ka hor. kadibna nebiga iyo asxaabta kadib dowladdii umawiyiinta ah xukunkii cabdulmalik bin marwaan oo uu ahaa 646 ilaa iyo 705 intuu u dhexaysay ayuu ciidamo soo diray oo ayagana xukumayay muqdisho. 694na ciidamadaas ka mid ah ayaa kasoo degay kismaayo oo watay nin oo ku magaca cabdulmalik ibnu rumeyni cabdulmalik bin rumeymi la dhihi jiray. ninkaas boqornimo ayuu meesha isku sharaxay. magaalooyinka kismaayo, baraawe, marka ayuu dekedooyin ka dhisay oo hubka iyo saanadaha ugu soo degaan. kadibna wuxuu noqday magaalooyinkaas laga soo bilaabo kismaayo ilaa iyo warshiikh magaalooyin dekedayeedii buumin ah oo ganacsigoodana buumin ah. waxaa dhacday ganacsigaas isagoo buumin ah dad oo joogay magaalada ugu dadka badnaa waqtigaas ee bariga sacuudiga ama baxrayn oo la dhihi jiray alxasa. magaaladaas waxay ahayd magaalada sagaalaad ee ugu dadka badnaa sanadka markuu ahaa 1070kii sida taariikhyahanada ay sheegaan. magaaladaas waxaa kasoo baxay dad ganacsato ah, qoysas badan oo ganacsato ah oo 39 jifo gaaraya oo marka dambe dadkan reer banaadir ay noqon doonaan. 39kaas jifo waxay kala ahaayeen 12 oo muqari ah, 12 oo jidcata ah, iyo 6 jifo aqabi ah, iyo 6 jifo ismaaciili ah, iyo 3 jifo oo cafiifi ah oo 3da qabiil oo gudmina u kala baxa. sanadkan wuxuu ahaa 799. magaalada ay kasoo guureenna waxay ahayd alxasa. ganacsigoodii si ay ugu furtaan magaalooyinka buuminka ah ee dekedaha leh oo markaa la dhihi doono banaadir. banaadir waxaa laisku yidhaahaa magaalo dekedeed ee ku yaal geeska afrika oona ah warshiikh ilaa iyo baraawe ilaa ay kismaayo dad baa gaarsiiyey, taariikhyahan ayaa gaarsiiyaan. marka qarnigii 9aad sidoo kale waxaa yimid muxuu ahaay oo xagga yemen ka yimideen ciidamo oo runtii nin la dhihi jiray musafar hogaaminaya. waxay soo degeen magaalada muqdisho maamul ayay u sameeyeen oo amni ah. sanadka markuu ahaa 1100 ilaa 1200na waxaa yimid dadkii xalwaan iyo zawsaan. 1250kiina shiraaziyiinta oo iiraaniyiinta ayaa yimideen. muxuu ahaay taariikhda xalwaan iyo zawsaan waxay fiican tahay in aan brograam aan ka diyaarsho, waqti uma hayno. 1250kii waxaa loo caleema saaray boqortooyo saldanad. muxuu ahay maamulkii oo musafar sheekh abubakar bin faqrudiin wuxuuna geeriyooday sheekha suldaanka ahaa 1290kii. wiilkiisii ayaa loo calaama saaray sheekh cumar bin abubakar faqrudiin. muxuu ahaa nin qoraa weyn ahaan jiray oo addoon u ahaan jiray dadkan gariiga ah. yaaquud arruumi la dhihi jiray xamaami. muxuu ahay sanadka markuu ahaa 1179 ilaa 1229 wuxuu ka qoray buug oo la yidhaah mucjam albuldaan. wuxuuna ku qoray magaalada ugu horumarsan inay tahay magaalada muqdisho dhinaca ganacsiga iyo bilicda intaba. wuxuuna sheegay in oo ay dadku isku xukumayeen shareecada islaamka. waxaa ku xigay muxuu ahaay sheekh abubakar faqrudiin wiilkiisa ayaa ka dhaxlay sheekh cumar bin abubakar faqrudiin. sanadka markuu ahaa 1320 ilaa iyo 1350kii ayuu xukunka hayay. waa tii ninka la dhihi jiray muxuu ahay cabdalla maxamed attanji ibnu batuuta ayaad u taqaaniin. 1331kii uu soo maray magaalada muqdisho asagoo bishii juun oo kasoo tegay morocco
sanadka muxuu ahaay 1325 kadibna wuxuu ku laabtay wadankiisa Morocco 24 sano kadib markuu caalamka uu soo wareegay. ninkaas wuxuu ku tilmaamay magaalada Muqdisho inuu ku arkay daarar 4 dabaq ah, dadka luqada ay ku hadlayaan inay ahaa luqad carabi ah iyo luqadan dialogue ah ee Soomaalida ku hadlaan. wuxuu kaloo sheegay dadka midabkoodii inuu ahaa midabka raqiga ah, raqiga qubkiisii midabka ah dadka inay lahaayeen. wuxuu sheegay in si fiican loo martigeliyey. wuxuu sheegay lacago qalaad inuu meesha ku soo arkay. lacagaha coinska sidoodaba waxay bilaawdeen ama qadaadicda sidoodaba waxay bilaawdeen qarnigii ximyar oo 1110 BCE aan dhahnay. waqtigaas ayay bilaawdeen ilaa waxay jireen muxuu ahaay qarnigii 17aad. waxaana taas calaamad u tahay taariikhyahanada ay u bartilmaameystaan qadaadicdaas. qadaadic walba waxay ka turjumaysaa ama sheegaysaa boqorka waqtigaas talinayay sawirkiisii iyo taariikhdiisa ayaa ku qoran. waxyaabaha ugu weyn oo meesha lagu arko waa waxaas. muxuu ahaay taariikhda 1505 magaalada Muqdisho waxaa soo maray Vasco da Gama. ciidamo Boortaqiisa mar ay haystaan magaalada Baraawo. ciidamada Boortaqiiska waxay qabteen 1499 habeenimo ayagoo Muqdisho u socdo ayay Muqdisho u maleeyeen Baraawo. ayagoo Mombasa ka soo baxay waxay u maleeyeen Muqdisho inay Baraawo tahay. magaalada Baraawo markay marayeen markaas weerar ku qaadeen, kanuuniyo ay ku dhufteen. 3 maalin ayaa magaalada hulceysay oo dadkii wixii baxsan kara baxsadeen, wixii kalena ay burburiyeen oo waxay rabaan ay ka sameeyeen. waxay haysteen ilaa 16 sanadoo kale. 1516kii Boortaqiiska ku dhufo ka dhaqaaq sidii loogu waday waa u dhadhami weysay. wuxuu damcay inuu magaalada Muqdisho u tago. dad jawaasiis ayuu diray. dadkii jawaasiiska ah oo soo laabteen waxay yiraahdeen magaalada dhufeys culus ayaa ku jira. waxaa isku bahaystay dowladii Musafar iyo kii oo muxuu ahaay ajuuraan, dowladii Cuthmaaniyiinta iyo nin India ka socday oo isna 2000 ciidan watay iyo dooman badan oo dagaal watay oo la dhihi jiray Mir Beg Ali nin la dhihi jiray. ninkaasna dhabar jabin ku sameyn doona dadkan Boortaqiiska ah. marka General Twisto nin la yiraahdo ayaa ciidamada watay. wuu ka baqay. ciidamada wuxuu hogaamiyay xagga iyo jasiiradan oo muxuu ahaay Skotro la yiraahdo ee Yemen ka tirsan. jasiiradaas ayay muddo joogeen kadibna Indiya ku duuleen oo magaalooyin ay ka gubeen. kadib Muqdisho waxay imaan doonaan 1538 waxayna dagaal meesha iskugu hor fadhiyay ilaa iyo 1557 kadib way qanaaseen way ka tageen. haddana waxay ku soo laabteen 1580kii 1580kii ilaa 1586 dhabar jabin waxaa ku sameeyey ninkii ciidamada watay oo la dhahay Mir Beg ayaa dhabar jabin gadaal kaga sameeyay oo ciidamo dhinaca badda ka keenay.